barnaamijka caweyska wadaniyada iyo xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliland oo ay soo qaban qaabisay xarunta barashada wadaniyada ee wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Soomaaliland iyo dalada Soonyo ayaa loo qabtay xarunta barashada wadaniyada waxaana ka soo qayb galay munaasabadaasi agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Soomaaliland xildhibaan Saciid Sokeeye oo kamida mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland gudoomiyaha dalada Soonyo aqoon-yahano mas'uuliyiin agaasimaha xarunta barashada wadaniyada iyo mudan iyo marti kale intii munaasabada ay socotay ayaa waxa halkaasi lagu soo bandhigay muhiimadda ay leedahay barashada wadaniyada iyo sidoo kale taariikhda faaca weyn leh ee ay leedahay maalintani dhalinyarada Soomaaliland oo waastaysan 20 bisha labaad oo sanad kasta laga xuso guud ahaan wadanka Soomaaliland ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha xarunta barashada wadaniyada Cabdirasaaq Danaakil waxa uu ka waramay munaasabadani ay soo qaban qaabiyeen barnaamijku noo furnaan doona oo agaasimo mas'uuliyiinta iyo fanaaniinta iyo dhammaan qaybaha kala duwan ayuu halkaas uga socon doona waxaan doonayaa ka warbixiyo barnaamijka iyo xuska caawa runtii aan iska kaashanay dalada dhalinyarada ee Soomaaliland ee Soonyo hadda mas'uuliyiinta jooga gudoomiyihii guud agaasimo fulinta runtii asaguna qayb ka ahaa oo soo gali doonaan iyo mas'uuliyiinta kale runtii inoo iman doonaba waan soo dhaweyn doonaa marka aad iyo aad mahadsantihiin dhankoodana waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha dalada Soonyo marwada madaxweynihii hore ee Soomaaliland marxuum Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal xildhibaan Saciid Sokeeye oo kamida mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa ayna bogaadiyeen xarunta barashada wadaniyada oo munaasabadani iyadoo soo qaban qaabisay dhammaan dhalinyartu waa xuduud iyo awood laga faa'iideysan karo marka waxaan u baahanahay inaynu fikirno si toosan ama waxa weeye wanaagsan aynu fikirno inaanu fikirin waxa weeye waxa bulshadeena aad u wadaadiyay qabyaaladu waxa weeye dugsi ma laha waxaan u baahanahay inaynu dhammaanteen meel ugu soo wada jeegsano waxa weeye wacdo waataan maanta dadkeena halka fadhiya hadii ama dhalinyarta la weydiiyo qofka fasalkiin 4 sano ka hor ama 5 sano ka hor ama 8 sano ka hor fasal haydeen ma xiriirisa ama ma garanaysa magaciisa oo saddexan waxa laga yaabaa inaanad garanayn ama halku waxa weeye degan yahay ama adduunyada halku joogo marka xiriirka bulshada inoo sheegaysa sidoo uu daciif u yahay marka waxaynu u baahanahay intii isku galaas ama isku fasala intii isku shaqaa intii isku waxa weeye hadii jeer meel wada joogto ayaa dadka iska jirta qofna aakhiro qabiilkiisa dhinaca looma dhigo wax laaliyo wixii naga raaciya ma jirto waxaan idinku boorinayaa daldays iyo wadaniyad jacayl wadaniyadu waa maxay inaynu nidhaahno laakiin qabyaaladu waa maxay inaan odhan waxay nagu soo batay imka Soomaaliland mukhadaraad maanta laga sheekeeyay madaxweyne ku-xigeenka khayraadka kaga sheekeynaya mukhadaraadkaasi waxay sahlaan dilka fudud qofka hadduu mukhadaraad qaato nolosha qofkan waxba lama aha soo qosliyo ka takhalusaya mukhadaraadkaasi si aynu la dagaalano diinteennuna way caariye bay ka dhigtay dhaqankeenu uu caariyo ka dhigay dadnimadu caariye ka dhigaysaa qof maskaxdiisa aanay joogin wax lagu aaminayaa ma jirto waxaan idin leeyahay hablaha inta wax waanin kartaan inta dhalinyarada waagin kartaan inamada hal waaniyo waxa haysataa dimuqraadiyadda iyo xornimadii waxa haysataa farxadii iyo nabadgelyadii waxa aad ku nooshiin guryihiinii idinkoo ilaahay mooyaane cid kale aan ka baqanayn at that time waqtigaas uu qofkaas markuu haysto wax la yiraahdaa al-istiqraar nafsi deganaanshiya nafeed waxaynu u baahnay markaa in aynu brainstorming aan samayno oo inta dhakhtarka ay ku dadaasho sidee u horumarin kartaa aqoonteeda sidee mujtamaceeda uga adeegi kartaa oo madaxweynuhu shaqadiisu ay ahaataa inuu yahay inuu inaga inoo shaqeeyo anuu yidhi ka baqlaysa maadhow inuu yidhi waxaan adigu ahay khaadim baan u ahay dadka ay appreciate oo ku taqdiirinaya madaxweynaha inuu kelmadda yiraahdo waxaan idiin ahay adeegaan idiin ahay so that you say you are the president idinka ayaa madaxdiya marka waa inaynu aaminaa in aynu leenahay tan in quruxdeena tahay
in aynaan dib ugu noqonin casri jaahiliya. dhankoodana waxaa halkaasi ka hadlay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland iyo sidoo kale wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta ee Somaliland waxa ayna hambaleeyeen guud ahaanba dhalinyarada Somaliland xuska maalinta dhalinyarada Somaliland oo ku beegan 20 bisha labaad oo sanad walba la xuso waxa ayna ka warameen muhiimadda ay leedahay maalintani ay bilaabeen oo dhalinyaraha samafalayaalaha doonayay magaalada Hargeysa inay wax badan ka qabtaan horumar badan ka sameeyaan isbitaalka oo bariga dayacna asalkii halka ay ka bilaabtay ahayd isbitaalka Hargeysa dayacna ay siraadeen dayactira oo ka qabta wax badan horumar iyagoo ahaa laba gruub dalka joogay iyo gruub qurba joogo dhaqaale keenaya dawladda xilliga joogtay kacaanku markaa ay si kala waafiday xirxidhay sidii xilligan Soomaaliya sheegay dabeetana dhalinyartii iskuulaadka shantii dugsiyada laga xusay ay kacdoon ku sameeyeen oo dabeetana dhibaato soo gaadhay maalin weyn bay ahayd intii ka dambeysayna waa la xusay maalin qaran baa laga dhigay ilaahay intii dhamatay aasaasiyaashii iyo dhalinyartii kacdoonka bilowday UFO intii dhamatay way ducaynaa waxaan leenahay ilaahay naxariistana ka waraabiyo maalintoodii baa qolyaha kale ee nool ee odayaasha ee muxtarimkaana ilaahay waxaan ugu baryaynaa caafimaad qab dhalinyarada halkan joogta ee xarunta wax ku barata inta kale iyaguna kuwan ka soo qayb galay waxaan kula dardaarmay inay waddaniyada adkeeyaan in casharada waddaniyada civil education oo kale imika iskuulaadkeena uu ku jiraayo in daljacaylka kale imika qof kastaaba uu ku jiraa social media imika loo soo guureeyo iyo qof kastaba dagaalka halkaa ka galo marka layna soo weeraro dibadda laynaga yimaado in qof kastaba difaaciisa xidho oo waxa wanaagsan aynu isku taageersano waxa laga yaabo in badan oo aan aqoon iyo ehel u ahayn inay haddii fursad shaqo timaado iyo haddii idin walaalaysaba runtii ama idin rarkaxaynayaaba waa cadowgiina kaasina cadowgu waa tanna waa maxay waa cadowgeena marka xasuusnaada dhalinyaray runtii waxa qarankan mideeya aynu wada leenahay waa Somaliland waxa Somaliland ka soo sokeeya ee in gaaraad wada yeelataan intaana way sii qaybin doontaa marka runtii waxaan uga faa'iideysanayaa halgankii dhalinyarta wiilal doorkooda ugu ciyaareen way xoreeyeen dalkeenii Somaliland la yiraahdo nasiib u yeelateen kolba duruufii soo maro qabtuun duruufii soo maray dalkan hadii ka sheekayso maamadu waxa filayaa inaydaan wax badan idin filaynayd maqashaan marka haddaad nasiib u yeelateen dawladdiisan madaxweynaha doorateen oo qarankii hogaaminaya aqoontii oo runtii maalinta uu Siciid nooga sheekay macallimiintiiba dugsiga sare dhigayeen xidhaayeen oo meel walba taala technology maxaa maanta hadaba inaynu ka faa'iideysan karnaa marka aan jecelahay inaynu u diyaar garowno xarunta waddaniyada waa mid ka mid ah hubka aynu haysano aynu doonayno qarankan inaynu ku jihayno aynu doonayno runtii inaynu kula dagaalano cadowga muuqday maanta leenahay qabyaaladda iyo kala qaybinta bulshada waxaan doonaynaa garaadkeenu inuu koro waayo muhiimaddu waxa weeyaan waxa laga yaabaa inaad jaamacad ama dhigataan ama adintiina badan aad runtii kaba baxdeenba marka aqoontu waa skill sidoo kalena waa inay samaysaa isbedel bulsho ama behavioral change waxa la yiraahdo aqoontu haddaanay bulsho aanay ku jahayn horumarkeena wanaageeda runtii de aqoon noqon mayso marka waxaan doonaynaa runtii xaruntan inay qayb ka noqoto isbedelka waxa laga yaabaa inaynu iskugu nimaadno ama ka wada tashano si aynu program dhammaystiran ugu samayn lahayn marka idinkuna noqdo mujaahidiin haddii jireen dalkan xoreeyey mujaahidiinta waddaniyada ama muwaadiniinta mujaahidiinta walaalaynta guud ahaan Somaliland mujaahidiinta halganka iyo horumarka dalkan waa door idiin bannaan taasi haddii dhamaatay halgan kuma dhamaado